شكرا يا ربي شكرا. السلام عليكم. daryeel ilaalin iyo taxaddar gooni ayay u baahan tahay hooyada uurka leh ee sida ilmaha. sababta ugu weyn ee looga taxaddarayo ayaa ah maadaama ay ku xiriirto naf kale oo u baahan nafaqo iyo caafimaad wanaagsan inay ku dhalato. hooyada uurka leh waxaana la gudboon inaan ku fiirino il gooniya oo la xiriirta waxa ay cunayso iyo waxa ay cabayso. muuqaalkeenna maanta ayaan ku darasi doonaa ama ka hadli doonaa cunnada ugu fiican ee la siinayo maamada marka ay ubad caloosha ku waddo ama ay uur leedahay. ka hor muuqaalka haddii aad ka heshid fadlan like saar. sidoo kale haddii aadan ka mid ahayn asxaabta janaalka fadlan sabskrayb dheh oo nagu soo biir asxaabtana u gudbi si fariimaheena wanaagsan u gaaraan. aan bilaabo fiidiyowga. شكرا يا ربي شكرا. cunnooyinka markii aan ka hadlayno dhammaan waxaa laga helaa nafaqooyin afka qalaad loo yaqaan carbohydrates, proteins, fats iyo minerals. dhammaan nafaqooyinkan waa kuwa ay u baahan tahay hooyada si ay uga hesho nafaqada dhallaankeeda iyo teedaba. waxa ugu weyn ee hooyada ay u baahan tahay ayaa ah waxa loo yaqaan afka qalaad iron iyo folate oo afkeena loogu yeero bir. birta ama ironta waxay hooyada ku caawinaysaa in cunugeeda ay gaarsiiso waxa uu u baahan yahay si uu u ahaado mid caafimaad qaba, maadaama irontu ay ka qayb qaadanayso samaysanka unugyada dhiigga cascas kuwaas oo cunugga dhiig ahaan ugu geynaya nafaqadiisa. cunnooyinka ugu fiican waxaa ka mid ah cunnooyinka diirka leh, qudaarta, midhaha qaar iyo cabitaannada oo door weyn ku leh caafimaadka nolosheenna. cunnooyinka diirka leh waxaa ka mid ah cambuulada, qamadiga, misirta, sarreenka iyo boorashka, kuwaan oo ah kuwa ay hooyada ka heli karto iron ku filan. qudaarta u roon hooyada uurka leh waxaa ka mid ah ansalaatada, bocor guduudka, isbaanajka oo ah nooc ka mid a qudaarta kaasoo u eg reexaanta, yaanyada iyo kuwa la midka ah. sidoo kale hooyada uurka leh waxaa kaloo u wanaagsan inay cunto ukunta iyo malayga, cabtana caanaha oo intoodaba laga helayo fitamiinno, borotiinno iyo iron oo dhammaantood ah kuwa caafimaadka hooyada iyo dhallaankaba kor u qaada. cuntooyinka aan soo sheegnay ayaa ka dhigan kartaa kuwa aad maalinkii qaadato oo aad cunto 3 waqti, maadaama loo baahan yahay inaad wax cunto ka badan intaa horey wax u cuni jirtay ama maamada uurka leh intii ay horey u cuni jirtay ka badan. keliya waxay iska ilaalinaysaa hooyada uurka leh inay cunto beerka sababo jira daraaddood oo aan kaga hadli doono muuqaal gaar ah maadaama ay dheer tahay ka hadlidiisu. muuqaalkeenna maanta intaas ayuu ku egyahay daawade. haddii aad ka heshay like saar, sabskrayb dheh muuqaalka si fariimaheena wanaagsan aad u aragtid mar walba oo aan soo gelinno muuqaalka inoo xiga insha allah. شكرا يا ربي شكرا.